Dowladaha, hay'adaha, dadka isjecel iyo waliba dadka bulshada magaca ku dhex leh waxa ay ka siman yihiin inay adeegsadaan jaajuusnimada. Dowladaha si ay u ogaadaan sirta cadawgooda waxa ay ku qasban yihiin in jaajuusnimo ay sameeyaan. Dadka ganacsatada ah, gaar ahaan shirkadaha waaweyn, faltanka wax soo saarka ah ee ka dhexeeya waxa uu ku qasbayaa in midkood midka kale wax soo saarkiisa ka hor ay isjaajuusaan. Mid walba oo kooxahan ka mid ah jaajuusnimada wuxuu u isticmaalaa manfacadiisa. Muuqaalkan waxaad ku arki doontaa sirdoonka dowladaha sida uu u shaqeeyo iyo qaar ka mid ah sirdoonadii la fashiliyay 50kii sane ee ugu dambeeyay. 1970kii ayaa safiir Mareykan ah waxaa kabaha hoostooda loo geliyay qalab mikrofon ah kaas oo mar walba u istaago safiirka hadalkiisa gudbinaya. Safiirka waxa uu lahaa shaqaale gaar ah oo feereynta dharkiisa u qaabilsanayd. Xilligaas tiknoolajiyadda aysan u horumarsanayn sida maanta oo kale, maadaama ay sidaasi ahayd tiknoolajiyadda dadka sidaas uma sii baraarugsanayn. Shaqaalaha markii ay u keeneen dharka iyo kabaha asiga oo aanan ka warqabin ayaa hadaladiisa banaanka laga dhageysanayay ayadoo aysan waxba ka soo wareegan. Ilaalada gaarka ah ee safaaradda Mareykanka waxa ay arkeen signals banaanka ka imaanaya oo gudaha safaaradda soo galaya. Si degdeg ah qolada amniga waxa ay bilaabeen in signalkan ay soo saaraan. Marka laga baarayna safiirka qunsuliyadda ayaa la arkay in signalska uu asaga xaggiisa ka imaanayo. Dharkiisa iyo meel walba iskaan ayaa la mariyay. Kabaha ayaa waxaa lagu arkay in hoostooda lagu soo dhex qariyay qalab sida mikrofonka ah kaas oo banaanka u suurta gelinaya in wixii gudaha looga hadlayo in banaanka laga dhageysto. Daqiiqado kadib waxaa la ogaaday in sirdoonka Czechoslovakia STB in ay qalabkan soo saareen. Hababkan ah in kabaha hoostooda wax la isku geliyo sanadka markii uu ahaa 1907 waxyaabaha ugu caansan ee qofka laga dhageysan karo codkiisa ayuu ahaa. Waxaasi ku xigtay isticmaalka xasharaadka. Taariikhda sirdoonka waxyaabaha ugu caansan ee la isticmaalay waa xasharaadka. Cayayaanada yaryar ee duula ayaa waxaa lagu xiri jiray qalab lagu koontarooli karo meel kale. Qofka bani'aadamka ahna waxaa ku adag in waxyaabaha yaryar sida tixsiga iyo shinnida oo kale in sirdoon oo kale uu uga shakiyo. Dagaalkii koowaad ee adduunka ka hor tiknoolajiyadda ay dadka isticmaali jireen maadaama ay aad u yarayd waxaa caan ahayd oo la isticmaali jiray magaalada hareeraheeda gaar ahaan xuduudaha waxaa lagu dhejin jiray mikrofono waaweyn meel dadka ay ku nool yihiin aad uga fog. Sababta sidaas loo sameyn jirayna waxay ahayd in diyaaradaha dhawaaqooda inta aysan soo gelin hawada wadanka in mikrofonada dhawaaqooda laga maqlo. Maanta se diyaaradaha waxaa laga ogaan karaa inta aysan soo gelin hawada wadanka masaafo gaaraysa 80 kiiloomitir ka fog wadanka diyaaradda ay usoo socoto. 1945tii sirdoonka Ruushka ee KGB ayaa waxa uu Mareykanka ku sameeyay jaajuusnimo aanan caadi ahayn oo taariikhda Mareykanka gaar ahaan sirdoonka baal muhiim ah ka gashay. Waxaa safiirka Mareykanka loo soo hadiyeeyay haykal aad u qurux badan oo astaan u ah qunsuliyadda, weliba nooca darbiyada lagu sharaxdo. Haykalkan qaabkiisa waxa uu u muuqday mid aanan marnaba qafna uusan ka shakin karin. Safiirka hadiyadan qaaliga ah durba wuxuu ku dhegsaday xafiiskiisa, balse haykalkii gudihiisa waxaa lagu dhex qariyay qalab aad u yar oo aan laga dareemi karin in wax lagu basaaso. Fasiix ah oo aanan shucaac lahayn ayaa safiirka qolkiisa looga dhex maqli jiray waxyaabaha uu ku hadlo iyo cidda uu la hadlo. KGB sirdoonka Ruushka 24 saac dhegta ayay ku hayeen. Muddo 7 sano ah ayuu haykalkaasi ku dheganaa xafiiskii. Cid dareentayna ma aysan jirin. Muddo kadib waxaa xafiiskii laga sameynayay dayactir. Waxaa si kadis ah loo arkay waxyaabo cajiib ah oo ku dhegan haykalka oo banaanka signals u gudbinaya. Khubaradii baartay waxay ogaadeen in qalabkan uu yahay mid wax lagu dhageysto. Arrintu haddii ay tahay mid ka dhalatay taxadar la'aanta safiirka, qof dambi loo qabsan karayo ma ay jirto, waayo sirdoonka oo dhan waxa uu ku dhisan yahay ka faa'iideysashada qofka ka soo horjeeda taxadar la'aantiisa. Xarumaha dowladaha gaar ahaan meelaha ay ku kulmaan madaxda, heerka ilaalinta xitaa waxaa laga shakiyaa hawada banaanka ka imaanaysa ee ka soo gelaysa daaqada qolka shirka uu ka socdo. Goobahan badanaa lama ogola in hawo banaanka ay ka soo gasho. Dowladdana waxa ay awood badan tahay hadba sirdoonkeeda inta uu la eg yahay. Sirdoonka Ruushka waxa uu ka mid yahay sirdoonada ugu saameynta badan. Mareykanka xitaa dhanka sirdoonka waxa uu aad uga baqaa Ruushka. Inta aanay tiknoolajiyadda horumarin ka hor, Ruushka waxa uu soo saaray qalabkaasi oo awood u leh in uu dib u soo gudbiyo aaladaha uu qofku wato xogta ku jirta. Muuqaalkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.